السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارتا وانيد السلامي. maanta waxaan ka hadli doonaa candlestick button. Candlestick buttonska laba qaybood baan u kala qaaday. Qayb basic ah oo aan sidii aad u fududahay in la aqoonsado ama qofku fahmo, iyo qayb advance ah oo ma garatay aan sidii intan markuu qofku kula barto ama uu kula fahmo ayuu inta kale u gudbi doonaa. inta hore waa ilaa 8 button weeyaan, ilaa 10 weeyaan inta hore, inta dambana waa ilaa 8 weeyaan. marka waxaan ka soo xigtay ama aan ka soo akhriyay buugga uu qoray Munhisa Homa ee The Candlestick Trading Bible. ninkan Munhisa Homa waa the most successful trader in history, ama waa nin xagga traderka si guulo badan ka soo hooyay. marka waxa aan marka hore awoodda saari doonaa ama focuskan saari doonaa inaynu barano 10kan candlestick button sida the engulfing bar, doji candlestick, dragonfly doji, gravestone doji, morning iyo evening, hammer iyo shooting, harami iyo the tweezers top and bottoms. intaaba hadda la dhaxal isku day doonaa inaan ka fagareeyo. inta markaan dhameeyana ama 10kan mid aan dhameeyana aan 8 kale u gudbo haddii alla ka dhigo. marka hore inta aanan u gudbin sharaxaadooda iyaga, anigoo isku dayay inaan aad u koobo si aad idinku inagu baan fahamkeen u soo dhaweeyo oo in yaroo macna ku samaysan ama intii aad iga fahmi karayso aad iga fahamto. waxaan isku dayayaa inaan aad u koobo, mid walbana halkiisa ugu tago, ama haddii ay laba israaci karaan iyo haddii ay 3 israaci karaanba aan israaciyo. marka hore waxaan isla eegi doonaa waa maxay horta candlestick ama shumac. qofba sibuu yaqaanaa, qofka haddii loo ay dadka qaar ba shumac u yeedho Soomaali ahaan ama u fasirta. marka waxaynu ku qeexi doonaa si aynu iskula ogaano horta candlestick waxa uu yahay. waxaan odhanaynaa candlestick ama shumac waa nooc ka mid ah jaadka ama shaxda oo inoo muujiya ama ina tusa qiimaha meesha lagu xidhay iyo meesha lagu furay. sidoo kale waxa ina tusaa halka u sareysa iyo halka u hooseysa, within high and low. waxaan maleynayaa inaad fahamtay baan maleynayaa. waxaan ku yiri candlestick ama shumac waa nooc ka mid ah jaadka ama shaxda ama qiimaha, kaasoo ina tusaa qiimaha halka u sareysa iyo halka u hooseysa iyo meesha lagu xidhay iyo meesha lagu furay candlestick. markaan ka gudbayaa waxaan u gudbayaa sida uu u shaqeeyo ayaan u gudbayaa. candlestick sida uu u shaqeeyo waxa weeyaan, waxa uu mataqaanaa meel waa meeshii haddii uu yahay mataqaanaa ama uu kor u socdo, mar walba waxa lagu xidhaa lagu furaa halka hoose lagu furaa, waxaana lagu xidhaa halkan sare. sida aad arkayso imka qiimahan ama beerishkan ama candlekan bullishka baan u jeedaa, sorry, waxaad arki kartaa in halkan hoose lagu furay, halkaana lagu xidhay ayaad arki kartaa. halkaasina ay tahay halkii u sareysay, halkanna ay tahay halkii hooseysay, halkanina ay tahay bodigii. haddii aanu imaado beerishka ama qiimaha hoos u socda, waxaad garan kartaa mar walba isaga waxa lagu furaa ama aad xusuusnaataa in xagga sare lagu furo, mar walbana halka hoose lagu xidho. maxaan ku yiri aan ku celiyo si aan u fahmo. aan ku celiyo aan naga tirtiro maxaan ku yiri haddii uu yahay bearish ama mid kor u socda, qiimaha mar walba wax lagu furaa halka hoose ama halkaas ayaa laga furaa, waxaana lagu xidhaa halka sare. haddii uu yahay bearish ama suuq hoos u socdana, mar walba wax lagu furaa halka sare, waxaana lagu xidhaa halka hoose. aan ku celiyo haddii qiimuhu yahay bullish ama suuq kor u socda, mar walba wax lagu furaa halka hoose, waxaana lagu xidhaa halka sare. haddii uu yahay suuq bearish ama mid hoos u socda, mar walba wax lagu furaa halka sare, waxaana lagu xidhaa halka hoose, halkanina waa bodigii.
halkan aad ujeedaana waa borigii candleka. marka waxaan u malaynayaa imika inaan isla fahnay intaa. ku cesho adiga ayaa fahmi doona. baad google-ka gal, meel walba ka raay adigu iyo si daris mar walba aad practical samayso ama aad wax badan akhriso, wax badan ayaa ku kordhaya ama aad ka faa'iideysaa. aan ku celiyo tusaale kale aan naga siiyo inta aynaan ka bixin. qiimuhu ama mar walba wuxuu socdaa ama kor buu socdaa ama hoos buu socdaa. haddii qiimuhu kor u socdo oo uu yahay bearish, mar walba wax lagu furay u fiirso intan iyada iskaga kaale, intan maran iyadu waa week kuma jirto. mar walba waxaad eegtaa bartaha qiimuhu halka u maaragtay buuxda ama ha hooseeyo ama ha sarreeyo, mar walba halkaas ayaa lagu furaya haddii uu yahay bearish. haddii uu yahay mataqaanaa waxaan ujeedaa haddii uu yahay bullish, mar walba halka hoose ayaa lagu furayaa, halka u sarreysana waa lagu xidhayaa. haddii uu yahay bearishna mar walba waa cagsigiisa u fiirso, cagsigiisa waxaa lagu furayaa halkan sare, waxaan lagu xidhayaa halkan hoose. iyadoo mataqaanaa sharaxaad badan u baahnayn ayaa waxaan filayaa badda inaad mataqaanaa aad fahmi karayso. marka waxaan u gelayaa candlestick patterns-kii. waxaana inoogu soo horeynaya the engulfing bar. the engulfing bar haddii aad maqasho mataqaanaa ama aad aragto waa laba candle ama waa laba pattern oo isdaba socda. mar walba engulfing bar rule-ka koowaad waxa aad ka eegaysaa waa inuu yaraadaa ka xagga bidixda xiga, waa inuu yaraadaa oo weynaadaa mar walba ka xagga midigta xiga, lefty and right. marka waxaad ogaanaysaa haddii aad aragto haddii uu yaryahay ka xiga xagga bidixda xiga uu yaryahay oo xagga ka midigta xiga uu weyn yahay, inuu yahay the engulfing bar. marka the engulfing bar-ku bullishna uu dhacaa, bearishna uu dhacaa, labada dhinacba uu dhacaa. mar walbana wuxuu dhacaa meelaha suuqu mataqaanaa supportka iyo resistance-ka u ah ayuu dhacaa. marka imika suuqan waxaan ujeednaa waa suuq wuxuu ahaa hoos u soo socday oo sellersku ay awoodda wateen ama ay hoos u soo wadeen. kabacdina waxay noo samaysmay candlekii yaraa iyo candlekii weynaa. waxaad ujeedaa in suuqii lagala wareegay awooddii oo buyerska ay awooddii la wareegeen oo sellerskii kala wareegeen. haddii aanu imaado kan kale, waxaad ujeedaa suuqu inuu kusoo socday uptrend oo mataqaanaa buyersku ay awoodda ama xoogga iyagu suuqa ku haysteen. waxay noo samaysmay the engulfing bar ayaa noo samaysmay oo candlekii yaraa iyo candlekii weynaaya. waxaad ujeedaa suuqii waxa ku dhacay totally jihadiisii ayuu ka bedeshay oo wuxuu noqday sell ayuu u dhaqaaqay ama reversal baa ku dhacay suuqii. mar walba halkaa aad arkayso waa stop loss kaad dhigan lahayd, halkanina waa endkaad ka geli lahayd. mar walba wax laga galaa candleka labaad, inkastoo ama candlestick aanay ahayn awood suuqa lagu galo, ay tahay confirmation ama aqoon inaad waxaan barato. oo maadaama suuqa uu ku dhisan yahay oo aan adigu isticmaalin line waxa aad candlestick isticmaasho, muhiim waxa ah inaad candlestick kala taqaano ama barato ayaa muhiim ah. marka waan ka gudbayaa tusaale kale ayaan gudbayaa. mataqaanaa sawiradu waxay noo soo dhaweynayaan fahamka, ayay noo soo dhaweynayaan sawiradu. waan ka gudbayaa oo fiirso suuqan muxuu ahaa. suuq wuxuu ahaa downtrend kusoo socday, sellerska ayaa awoodda lahaa ama xoog suuqan ku haystay. waxay noo samaysmay the engulfing bar. suuqii totally jihadiisii uu ka bedeshay oo waxa uu bedeshay reversal baa ku dhacay oo waxa uu noqday uptrend oo buyerska ayaa awooddii suuqa la wareegay. haddii aan kan kale u fiirsano waxa ahaa suuq uptrend ama kor u socda. waxa inoo samaysmay engulfing bar bearish ah ayaa noo samaysmay. kabacdina suuqii jihadiisii ayuu ka bedeshay oo waxa uu noqday reversal ayaa ku dhacay suuqii oo buyerska awooddu waa lagala wareegay oo sellerskii ayaa la wareegay awooddii suuqa.
isku day aan ku celiyo. suuqan waxa uu suuq downtrend ah ama sellersku ay awood ku haystaan. waxa inoo samaysmay engulfing bar. waxa suuqii totally reversal ayaa ku dhacay oo jihadiisii maaha jiha kale ayuu u dhaqaaqay oo dabcan sellerskii suuqa awood ku haystay waa laga wareegay oo waxa kala wareegay buyerska ayaa awood suuqii kula wareegay. suuqan waxa uu suuq buyersku ay awood ku haystaan ama kor ay u wadaan. waxa inoo samaysmay engulfing bar. suuqii waxa ku dhacay reversal oo sellerska ayaa la wareegay. tusaale kale aan naga tuso ama tusaale kale aan naga siisiyo. suuqan waxa uu suuq uptrend ku socda ama suuq buyersku ay awood ku haystaan. waxa inoo samaysmay engulfing bar. halkaas waxa inoogu samaysmay engulfing bar. suuqii waxa ku dhacay reversal. buyerskii awood waa laga wareegay oo sellerskii ayaa la wareegay. halkan kale suuq waxa uu downtrend ku socda. dabcan sellerska ayaa awood suuqan ku watay. ka bacdina waxa inoo samaysmay engulfing bar. that means suuqii totally reversal ba ku dhacaya oo awoodii sellerska waa laga wareegay oo buyerska ayaa awoodii la wareegay. tusaale kale naga siiyo. u fiirso suuqan waxa uu suuq uptrend ku socda. wax yar ayuu hoos u soo yara dhacay. halka waxa inoogu samaysmay the engulfing bar ayaa inoogu samaysmay. suuqii waxa ku dhacay reversal ama inuu hoos u dhaco. marka halkani waa entry point-gaagii. halkani waa halkii ka gali lahayd ilaa ay halkaana mataqaanaa waa price target-gaagii. meelahan ka dambeysay ilaa mataqaan 12 bibna waxaad dhiganaysaa stop loss kaaga. aan ku celiyo. suuqan waxa uu suuq buyersku ay awoodda ay ku wateen. xoogaa yar uu soo yara dhacay. haddana waxa la isku dayay suuqan inuu noqdo ayaa la isku dayay. waxa inoo samaysmay engulfing bar ayaa inoo samaysmay. suuqii waxa ku dhacay inuu reversal noqdo oo mataqaanaa uu hoos u soo dhaco. halkaa waa halkii entry-ga candle-ka labaad waa entry-gaagii. meelaha ilaa 12 bibna stop loss kaaga dhiganaysaa ilaa halkaana waxaad ka dhiganaysaa price target-kaaga. aan hore uga socdo. waxaanaad arkaysaa intan oo dhanba waa engulfing bar. mar walba waxa yar kana yar kan dhinaca xiga ayaa yar. mar walba kana yar kana weyn. mar walba u fiirso kana weyn. hadduu suuqu mataqaanaa uu yahay hadduu bearish yahay ama hoos soconayana mar walba waxa weynaanaya mataqaanaa ka bearishka. hadduu bullish yahayna mar walba waxa weynaanaya ka bullishka. waxaan rajeynayaa inaad fahamtay ama wuxuun iga fahantay. tag google-ka ku qor the engulfing bar ku qor sawirada halkaa ka eeg. waxa aan 100% hubaa inaad si fiican u fahmi doonto. ma raba inay cashar ku dheeraadaan xiisadu dheeraato. intaas ayaan ku soo koobayaa. Assalaamu calaykum.